dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxay warbaahinta reer galbeedku aad u hadalhaysay baxsashada xaaska amiirka Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum iyo dacwad ay ka gudbisay kana codsanayso in laga furo sheekha Imaaraadka Carabta u dhashay Sheikh Mohammed ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay tix uu si careysan uga hadlayo ama ku eedeynaya haweeney uuna magacaabin oo khiyaantay amiirada ayaa la sheegay in horaantii sanadkan ay u baxsatay dalka Jarmalka halkaas oo ay weydiisatay magangeliyo kadibna ay aaday magaalada London oo ay ku leedahay guri weyn Amira Haya bint Hussein waxay isku aabayihiin boqor Cabdallah Urdun warbaahinta caalamka qaarkeed ayaa sheegaysa in Sheikh Mohammed bin Rashid iyo boqorka Imaaraadka Mohammed bin Zayed ay u safreen Jarmalka markaas ay joogtay halkaasi si ay amiirada ugu qanciyaan in ay soo noqoto balse way ka diiday Amirad Haya ayaa haatan 45 jir waxay ku baratay dalka Britain oo ay ka soo qalin jabisay jaamacadda Oxford oo ah halka ay ka soo baxaan inta badan madaxda Britain iyo dunidaba waxay isku aabayihiin sankorba ku soo xusnay boqor Cabdallah Urdun sanadii 2004 ayay isguursadeen Amir Mohammed bin Rashid kadib waxay noqotay madaxa ururka fardayahanka caalamka sanadii 2014 ayay xilkaas iska casishay iyadoo haysay muddo ku dhow amaba ku siman 8 sanadood oo ay haysay xilkaasi kadib Amir Mohammed bin Rashid isaga qudhiisu wuxuu London ku leeyahay goobta ugu weyn caalamka ee lagu xanaaneeyo fardaha taasoo ay ku nool yihiin ilaa 4500 oo faras ayna ka shaqeeyaan ku dhawaad 1500 oo faras dhowrkii